halkan oo ah xarunta wasaaradda caafimaadka Puntland ee Garowe maanta waxaa shir degdeg ah isugu yimi guddi hoosaadka wacyigelinta cudurka coronavirus ee u qaabilsan guddiga ka hortagga cudurka. kulankan oo uu shir gudoominayay wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Jaamac Faarax oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka ayaa waxaa looga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa wacyigelinta si bulshada ay ugu nabad gasho cudurkan. kadib markuu kulanka soo dhamaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay afayeenka madaxtooyada Puntland ahna agaasimaha miidiyaha ee madaxtooyada Jaamac Yuusuf Jaamac Dabrani. waxaa maanta halkan oo xarunta wasaaradda caafimaadka kulamadoodii joogtada ah ku yeeshay mid ka mid ah guddi hoosaadka wacyigelinta ka hortagga COVID-19 oo uu gudoomiye ka yahay wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiir Jaamac. waxaa ujeedku yahay marka hore inaanu u mahad celino si fiican ay u socoto wacyigelinta ku saabsan COVID-19 waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay iyo qaab kasta oo ka qayb qaadatayba aad baan ugu mahad celinaynaa. waxaan ka wada hadalnay waxyaabaha noo qabsoomay iyo qorshaha aan dejinay waxa ka qabsoomay iyo waliba qorshayaasha noo yaala sida u kala horeeyaan sidaan u qaban lahayn caqabadaha jira iyo fursadaha intii arrimahan socdeen. waxaan isla garanay in aanu kulamo la yeelano qaybo kala duwan ee bulshada muhiimka ah. guddidu waxa uu la kulmi doonaa culimada Puntland, waxa uu la kulmi doonaa hoggaanka dhaqanka ama nabadoonnada Puntland, waxaan sidoo kale la kulmi doonaa ganacsatada oo guddiduna ay tahay inuu la kulmo. guddidu waxa uu iska weydiiyay sida ay u hirgaleen awaamiirtii la xiriirtay xakamaynta iyo ka hortagga coronavirus oo ay qayb ka yihiin joojintii qaadka, hirgelintii bandowga, yarayntii isu imaatinka iyo goobaha dadka badan inay isugu yimaadaan la joojiyo. waxaan ka wada hadalnay waxyaabahaasi wixii ka hirgalay iyo waliba meelaha qaar haddii ay caqabado ka jiraan oo aan u farnay mas'uuliyiinta ay khusayso in sida ay tahay loo fuliyo lagana qayb qaato hirgelinta mas'uuliyadna la iska saaro dabcan in la hirgeliyo awaamiirtii guud ee guddida ka hore u soo saartay. guddidu waxa u mahad celiyay warbaahinta Puntland tan madaxa bannaan iyo tan dowliga ah doorka muhiimka ah ay ka qaadanayaan kana ciyaarayaan arrimaha la xiriira wacyigelinta iyo ka hortagga xanuunka coronavirus. waxaan ogsoonahay in xanuunkaasi uu halis badan adduunka ku hayo oo uu geystay halis caafimaad iyo mid dhaqaale isu socodka adduunkana uu xiray. Soomaaliya waa sax guddidu waxa qayb ka ah oo waxyaabaha aadka maartay guddidu ay uga shaqeysa kamid ah in dadku ay helaan warbixin joogto ah oo habeen kasta uu guddidu uu gudbiyo oo la wadaago bulshada ayaan tegin. warbaahintu way yimaadaan habeen walba waxa hadla wasiirka arrimaha laga hadlayo khusayaan guddida kamid waa sax Soomaaliya guddidu way yimaadaan way yimaadaan mararka qaarna way bataan mararka qaarna way yaraadaan oo saddex TV ku yimaadaan. inta badan waxaan ku dadaalnaa in dadku ay horta meesha lagu kulmay inay ahaato meel ciriirin aysan noqon. sida hadda maanta halkan ka socotana oo aad u wadataan maskiga iyo bahalahan gacmaha la gashto waxaan ku dadaalaynaa inay heshaan ugu yaraan waxa aad ku heshaan wax kasta ama qaasaynaaysa. waa sax xanuunku inta badan dadka ka shaqeeya iyo dadka wuxuu asiiray dadka frontline-ka goobaha sabkooda dadka jooga ama wacyigelin ha ahaato ama dadka shakhsiyaad ka shaqeeya marka taxadar dheeraad ayaan siinaynaa. waxaasi ugu muhiimsan oo kaliya wacyigelinta ay dadku qaataan wariyaashuna inuu wacyigelinta ka qaataan micna ma samaynayso in annagana hadallo dadkuna aysan wacyigelinta fahmin. waxaa micna samaynaya in dadku ay si iskooda oo isu ilaaliyaan. fariimaha ugu waaweyn ee maanta adduunka gadnay waxaa ka mid ah in la yiri qof walba gurigaaga joog si aad u caawisid khaatir. Shabakad Waqti Jaamac warbaahinta dowladda Puntland Garowe.